qof ka mid ah dadka hubka ka iibsaday suuqyada madow ee hubka lagu iibiyo ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qoriga loo yaqaan AK47 qiimihiisu hadda uu yahay $1,400 Mareykanka, qiimihii horena uu ahaa $700, halka qoriga kale ee loo yaqaan BKM-ka uu marayo $15,000. sidoo kale bastooladaha Belgiumka loo yaqaan ayaa gaaray lacagtoodii $2,000. arrintan ayaa loo sababayay laba mid in ay tahay hubka dalka soo geli jiray oo aad u yaraaday iyo dalabka dadka gudaha jooga oo sii badanaya. ganacsada hubka uga ganacsada suuqyada madow ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dalabka ugu badan uu yahay mid kaga imaanaya shakhsiyaad aysan ogeyn hay'ad ay ka tirsan yihiin, balse inta badan waxa la iibsanayaa qoryaha kala ah AK47, BKM iyo qoriga garabka laga rido ee RPG. qof dalaalnimo uga shaqaysa suuqyada hubka lagu iibiyo ee madow oo magaciisa ku soo koobay Yusuf ayaa sheegay in kal hore ay jirtay in hub badan dalka uu soo geli jiray, balse ay yaraatay hubkii ka imaanayay waddanka Yemen, waxaana batay dalabka gudaha ee iibsashada hubka 6 bil ee ugu dambeysay. waxa uu sidoo kale uu sheegay in ciidanka dawladda ay yihiin kuwo si aad ah hubkan u iibsanaya, sidaas darteedna uu sarakac ugu yimid qiimaha la iibiyo hubka. Yusuf oo la hadlayay Horn Observer oo arrimaha bariga Afrika iyo Soomaaliya wax ka qora ayaa sheegay in 4 hogaamiye beeleed ay 3 bil ee la soo dhaafay siyaabo kala duwan ay isku hubeeyeen, taa oo muujinaysa cabsi dhinaca ololaha doorashada ay siyaasiyiinta ay ka qabaan. Yusuf oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri, doorashooyinkan way ka duwan yihiin kuwii hore. beel waliba waxa ay doonaysaa inaan la dhicin ama faragelin lagu sameynin saamiga ay baarlamaanka ay ku leedahay. wax walba ayay u sameyn karaan haddii sidaasi ay dhacdo. xasan nuur oo muxallil dhinaca ammaanka ah ayaa sheegay in hadaladii ugu dambeeyay ee siyaasiyiinta xukuumadda iyo kuwa mucaaradka ay warbaahinta mariyeen ay muujinayso cabsi khatar ah dhinaca ammaanka, taa oo qasabtay in beelaha qaarkood ay si weyn ay isku hubeeyaan. qof ka mid ah dadka hubka ka iibsaday suuqyada madow ee hubka lagu iibiyo ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qoriga loo yaqaan AK47 qiimihiisu hadda uu yahay $1,400 Mareykanka, qiimihii horena uu ahaa $700, halka qoriga kale ee loo yaqaan BKM-ka uu marayo $15,000. sidoo kale bastooladaha Belgiumka loo yaqaan ayaa gaaray lacagtoodii $2,000. arrintan ayaa loo sababayay laba mid in ay tahay hubka dalka soo geli jiray oo aad u yaraaday iyo dalabka dadka gudaha jooga oo sii badanaya. ganacsada hubka uga ganacsada suuqyada madow ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dalabka ugu badan uu yahay mid kaga imaanaya shakhsiyaad aysan ogeyn hay'ad ay ka tirsan yihiin, balse inta badan waxa la iibsanayaa qoryaha kala ah AK47, BKM iyo qoriga garabka laga rido ee RPG. qof dalaalnimo uga shaqaysa suuqyada hubka lagu iibiyo ee madow oo magaciisa ku soo koobay Yusuf ayaa sheegay in kal hore ay jirtay in hub badan dalka uu soo geli jiray, balse ay yaraatay hubkii ka imaanayay waddanka Yemen, waxaana batay dalabka gudaha ee iibsashada hubka 6 bil ee ugu dambeysay. waxa uu sidoo kale uu sheegay in ciidanka dawladda ay yihiin kuwo si aad ah hubkan u iibsanaya, sidaas darteedna uu sarakac ugu yimid qiimaha la iibiyo hubka. Yusuf oo la hadlayay Horn Observer oo arrimaha bariga Afrika iyo Soomaaliya wax ka qora ayaa sheegay in 4 hogaamiye beeleed ay 3 bil ee la soo dhaafay siyaabo kala duwan ay isku hubeeyeen, taa oo muujinaysa cabsi dhinaca ololaha doorashada ay siyaasiyiinta ay ka qabaan. Yusuf oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri, doorashooyinkan way ka duwan yihiin kuwii hore. beel waliba waxa ay doonaysaa inaan la dhicin ama faragelin lagu sameynin saamiga ay baarlamaanka ay ku leedahay. wax walba ayay u sameyn karaan haddii sidaasi ay dhacdo. xasan nuur oo muxallil dhinaca ammaanka ah ayaa sheegay in hadaladii ugu dambeeyay ee siyaasiyiinta xukuumadda iyo kuwa mucaaradka ay warbaahinta mariyeen ay muujinayso cabsi khatar ah dhinaca ammaanka,
taa oo qasabtay in beelaha qaarkood ay si weyna ay isku hubeeyaan